السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta inta aan filimkeena bilaabin waxaan ka codsanayaa haddii aad rabto dhacdii ka horreysay ama qaybtii koowaad ee muuqaalka waxaad ka heli kartaa playlistiga muuqaalka marka waxaan kugula talinayaa inaad soo daawatid playlistiga muuqaalka subscribe na aad dhahdo channelka like na aad saartid muuqaalka intaas kadib aan soo laabanay muuqaalkeena filimku waxa uu ku bilaabanayaa marka uu Chris ka soo kaco hurdada intaas kadibna waxa uu toosinayaa isaga iyo Boy waxayna ka soo kacayaan hurdada isla markaana waxay bilaabaysaa Chris inay isku oydo sababo la xiriira dhacdooyinkii istaba joogga ah horteeda ka dhacday ayadoo soo xasuusanaysa sida ay familkooda hal mar horteeda ugu dhinteen laakiin Chris waa uu dejinayaa isagoo u sheegay in uu isagoo nolol ka adag midaan soo maray waxayna ka soo baxayaan goobta ayagoo soo raacay gaari waxayna ka soo baxayaan goobta ayagoo soo raacay gaariga ilaaliyaha madaxweynaha dhanka kale madaxa budhcadda waxa uu abaabulayaa weerar si ay weerar ugu qaadaan Chris iyo Boy inta ay dhexda soo marayaan ama ay ku soo jiraan dhexda jidka waxaan arkaynaa rag badan kuwaas oo dhismayaasha korkooda saaran isla markaana Chris waxa uu dareemayaa dabinada loo dhigay iyo inay wax khaldan yihiin isla markaana Chris waxa uu dareemayaa inay wax khaldan yihiin waxa uu cabaysanayaa biskooladiisa isla markaasna waxa uu dirawal amrayaa inuu ka leexdo wadada si uu uga badbaado cadowga waxaan arkaynaa Chris iyo Boy ugu dambeyn inay soo gaareen goobta Chris iyo Boy marka ay soo gaareen goobta waxa halkaas ku soo dhaweynaya ilaaliyaha madaxweynaha Chrisna Boy waxa uu sheegayaa in iska nasto oo isagu la soo hadli doono ninka isla markaana Boy waa iskaga tagaysaa meesha waxaana isku soo hadhay Chris iyo ilaaliyaha madaxweynaha oo halkaasna waxay ka wada hadlayaan wax ku saabsan inuu Chris ka soo saaro xogta isla markaana isagu waxa uu u tagayaa Chris si uu uga soo saaro xogta wuxuuna u sheegayaa inuu isagu qancin doono inuu gabadha xogta ka soo saaro inkasta uu Chris ka xanaaqay haddana waxa uu ku qasban yahay inuu baaro si uu u ogaado cidda ka dambeysay dilka marka uu Boy qolka ugu soo galana wuxuu u weydiinayaa su'aalo kala duwan si uu u ogaado bartilmaameedkiisa Boy waxay bilaabaysaa inay ka sheekayso dhacdada iyadoo indhaheeda aan ka dareemin inay ku faraxsanayn waxaana CCTV kaamirada kala socda ilaaliyaha isagoo wax walba ka dhageysanaya microphone Chris waxa uu soo baxaya banaanka waxaana wax walba oo gabadha afkeeda ka maqlay la wadaagaya ilaaliyaha isaguna waxa uu sheegayaa inuu mar labaad ku noqdo si uu xog fiican uga soo saaro kadib Chrisna waa ka yara meereysanaya laakiin ugu dambeyntii waxa uu ku soo noqonaya waxa uu su'aalo ku bilaabayaa Boy asagoo indhaha ka xidhaya waxa uu sheegayaa inay dareen ahaan u cabirto sida ay dareemayso markii la soo weerarayay ama markii ay joogtay goobta iyaduna waxay soo xasuusanaysaa wax walba dambeyntii waxay xasuusanaysaa nooca gaariga lagu soo weeraray iyo sidoo kale inuu ku jiro qof ka qarsoona kaasoo watay mooto dhacdooyinkan kor kala socday isla markaana Chris iyo ilaaliyo waxay ka wada hadlayaan arrinta sababtoo ah safarkoodu waxa uu isla markaana Chris iyo ilaaliyo waxay ka wada hadlayaan wax ku saabsan safarkooda waxa uu ilaaliyuhu u sheegayaa inuu awoodin safar asagoona u diray safar dhulka ah waxa uu u sheegayaa inuu u diri doono waxa uu ilaaliyuhu sheegayaa inuusan awoodin safar dhulka ah maadaama halistiisu badan tahay waxa uu sheegayaa inuu u diri doono safar cirka ah Chris iyo Boy maalintii xigtay waxay imaanayaan airportiga waxayna dareemaysaa inay Chris waayso qof walba xataa qofka ugu dhawaa ugu dambeyn Chris waxay dareemaysaa inay weyday wax walba xataa Chris oo ah qofka ugu dhawaa waalidkeed ka sakow laakiinse waa ay ku qasban tahay waxaana arkaynaa in ugu dambeyntii ku macasalaamay halkaas iyadoo oo hab siinaysa Boy marka ay diyaaradda soo gasho Chris oo raba inuu goobta ka tago waxa uu si lama filaan ah u dareemayaa inay wax khaldan yihiin isla markiiba waxa lagu soo qaadayaa weerar dhulka ah halkaana waxaan arkaynaa nin gaari saaran kaasoo rasaasaynaya dhammaantood Chris iyo Boyna waxa lagu soo qaadayaa weerar halkaasna waxa lagu burburinayaa wax walba waxaana halkaas lagu dilayaa kabtankii diyaaradda sidoo kale waxa halkaas lagu dilayaa duuliyaha diyaaradda sidoo kale waxa lagu dilayaa duuliyaha caawiyihiisa waxaana la rabaa in la dilo gabadha yar ee Boy intuuna dilinba waxa soo gaadhay Chris waxa uu la dagaalamayaa ninkii kadib Chris iyo Boy waxa ay soo qaadanayaan diyaaradda Chris iyo Boy waxay soo qaadanayaan diyaaradda taasoo ku dhaweynay qaraxdo waxa uu ku soo wadayaa diyaaradda iyadoo dhinac ka gubanaysa ugu dambeyntii waxa uu si dirqi ah kaga soo badbaadinayaa shilka derbi weyn waxa uu u soo deganayaa dhulka si nabad ah Chrisna waxa uu diyaaradda ku soo dejinayaa dhulka si nabad ah isla markaana ninkii budhcadda ayuu ka soo dejinayaa diyaaradda waxa uu soo saarayaa dhanka dambe ee gaariga halkaas ayayna ka soo tagayaan isaga iyo Boy waxa uu la xiriirayaa gabadh ay asxaab yihiin taasoo lagu magacaabo Meela waxa uu u sheegayaa inay u sii diyaariso goob ammaan ah sidoo kalena ay u diyaariso aashta uu ku ciqaabo ninka dambiilaha ee gaariga xagiisa dambe ugu jira Boy iyo Chris waxay soo gaadhayaan tunnel dhulka hoostiisa ku yaala halkaas waxay kula kulmayaan Meela oo ku sii sugaysay waxa ayna siinaysaa aashitada isla markaana waxay ka wada hadlayaan wax ku saabsan badbaadada Boy waxaana soo wacay ninkii madaxda u ahaa Chris waxa uu u sheegayaa in weerar lagu soo qaaday safarkiina uu saa ku baaqday haddana uu gacanta ku hayo mid kamid ah budhcadii soo weeraray isla markaana Chris waxa uu imaanayaa ninkii isagoo u sheegaya haddii uu hadlo inuu dhiman doono waxa uuna ka soo dejinaya gaarigii uu kolka hore saarnaa isagoo uu ku wareejinaya gaarigii ay Meela u waday waxayna Meela ka soo kaxaynaysaa goobtii waxa ayna keenaysaa goob ay seexdaan habeenkii isla markaasna Boy waxay arkaysaa ciyaarta lagu magacaabo chess taas oo kor taala miis kortiis waxayna ka dalbanaysaa inuu Chris la ciyaaro
waxaan arkaynaa Tracy inuu dhoola cadeynay markii ugu horeysay noloshiisa maadaama uu ahaa nin gangster ah ugu dambeyn waxa uu noqday qof farxad badan boy darteed Tracy waxa uu geerishka dhexdiisa ugu imaanaya ninkii burcadda ahaa isagoo hadafkiisu yahay inuu xog ka helo waxa uu aad u jildilayaa ninka sidoo kale waxa uu si xun u jildilayaa ninka isagoo ciqaabaya oo aashta ku shubaya laakiin ninkii wuxuu ku celcelinayaa aniga waxba ma ogi Tracy oo aad u xanaaqay ayaa aashtadii indhaha korkeeda kaga shubaya ugu dambeyntii waxa uu kala furaya afkiisa isagoo wax walba qiranaya ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in dawladdu qabatay shirkaas oo lagu qabanayo burcadda oo ogaaday cidda ka dambeysay falka arkaynaa inay meel ka tagtay goobta Tracyna waxa uu uga mahadcelinaya caawinaadda ay u caawisay ugu dambeyntii Tracy waxa uu imaanaya qolka ay ku jirto Bob waxa uu u sheegayaa in ay dib dhexda kaga jiraan wax walba ay aragtana aysan ka falcelin filimkeenu halkaas ayuu ku dhamaanayaa haddii aad xiisaynayso qaybta xigta ama part 3 fadlan muuqaalka like saar sidoo kale ku soo bir channelkeena Mo Films waad ku mahadsantahay daawashadaada sidaas iyo nabadgeliyo